iyo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyagana waxaan u rajaynaynaa inay ku guuleystaan hawsha inay sii daabihiyaan inta guddoon hor leh laga dooranayo haddii la yidhaahdo. haddana waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal mudane Yuusuf Galle Yuusuf ahlan wasahlan Yuusuf Galle. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. رئيس الوزراء ku-xigeenka golaha xukuumadda wixii ka jooga guddoonka baarlamaankii hore guddoonnimada cusub iyo baarlamaanka cusub guud ahaan guddoomiyaha gobolka bari bulshaweynta meeshan isugu timi xafladda tan sharafta leh ka soo qayb gashay ciidamada qalabka sida ciidanka amniga ilaalinaya dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib ilaahay baa mahad iska leh ina soo gaarsiiyey galabtay maanta halkan goobtan dhaarta keen isugu keenay innaga oo guud ahaan nabad qabna. sidaad la socotaan doorashada tan maanta aynu golahoodii shacbiga isugu keennay hoolkan waxay soconaysay muddo dheer oo 2 sano wax yar ka dhiman yihiin 20 bilood bay soconaysay laga soo bilaabo 17 Sebtembar oo heshiiskii u horreeyey oo lagu yegileelayay doorashada dadban ay saxiixeen madasha qaranka. waa doorashadii ugu dheerayd caalamka marka la eego dib loo eego caqabado badan bay soo martay meelo badan iyo buuro badan bay ka baxday oo ka degtay laakiin guud ahaan waxay ku soo dhammaatay nabadgelyo inkastoo ay meelo badan xilliyadii doorashada ay socotay ay ka dhacday dilal iyo qaraxyo iyo maaragtay xildhibaano dhintay. haddana si guud marka loo eego way soo gabagabowday ilaahay baa mahad leh. waxaan rabaa inaan soo jeediyo arrimo dhowr ah oo u baahan in ay noqoto bays laga duulo markii la rabo insha allahu lasoo gabagabaynayo. doorashada sideedaba waxaa ku dahaaraa ama ku wareegsanaa waxyaabo badan dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay siyaasado isdiidan oo dalka dhaqaale xumo abaaro nabadgelyo xumo joogto ah oo dalka ka jirtay. intaas waxay ku gaartay arrimo noocaasa iyo arrimo kaleeto oo hadda aan sheegi karin laakiin dadaal iyo juhdi dheer oo aan insha allah soo gallay iyo dulqaad weliba guddigu uu ku shaqaynayay xaalad duruufaad adag ayaan ilaahay wuxuu nagu galladay inaannu halkan soo gaarsiino. waxaa ka dhiman golaha labada aqal 25 xubnood oo ku kala dhiman 2 goobood oo iyagana insha allah aan filayno inay si dhaqsaa loo soo dooran karo. intii kaleeto waa la soo doortay wixii iminka dhaarta yimin maahay wixii kaleetona kolley way imanayaan shahaadooyinkoodiina way qaateen. waxaan leeyahay maantay dalku wuxuu leeyahay golo shacab iyo aqal sare
oo aan isleenahay waxyaabaha dalka ku soo wajahan bay wuxuun ka qaban karaan ama dalku horay buu u dhaqaaqi karaa in sha allah waxaan rajaynaynaa inaan barwaaqo iyo guul dalku ku soo in sha allah golaha shacabka iyo golaha aqalka sare oo la doortayna ay in sha allah u dhaqaajiyaan dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha dalka horumarkiisana laga shaqeeyo aad baan idiin salaamayaa waqti dheer baa la fadhiyey waxyaabo badana hadda oran karnaa ma jiro aad iyo aad baan dhammaan idiin salaamayaa ilaahay baana mahad leh oo halkanna soo gaarsiiyey wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu